General Abuukar Xaaji Warsame Xuud oo si weyn uga soo horjeeday Hirshabelle ayaa maanta waxa uu soo gaaray magaalada caasimadda ee Muqdisho isagoo ogolaaday inuu wada hadal toos ah la galo dowladda federaalka ee Soomaaliya. Xuud oo diyaarad gaar ah ay ka soo qaaday magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxaa la socday taliyaha ciidamada lugta General Biixi oo hormuud ka ah dadaalada socda ee lagu qaboojinayo xiisadda ka aloosan magaaladaasi Beledweyne si looga qabto doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. General Xuud oo muddo ku sugnaa duleedka magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa maanta si weyn loogu soo dhaweeyay caasimadda waxaana garoonka uga hortagay ciidamo iyo saraakiil loo diyaariyay inay qayb ka noqdaan soo dhaweyntiisa magaalada Muqdisho taas oo dhalisay hadalhayn aad u xoogan. Abuukar Xaaji Warsame Xuud oo horay uga hadlay safarkiisa magaalada Muqdisho ayaa xusay in uu kulan gaar ah la qaadan doono madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo maadaama Villa Soomaaliya ay haatan dadaal xoog la gelinayso xiisadda magaalada Beledweyne wuxuuna rajo wanaagsan ka muujiyay in ay guuleysan doonaan wada hadallada socda ee xalka loogu raadinayo tabashada ay qabaan reer Hiiraan. Xalka Hiiraan haddaan madaxweynaha isu tagno waxaan qiyaasayaa 70% inay xalismi doonaan ayuu yiri General Xuud. dhinaca kale wuxuu beeniyay in ilaa iyo hadda uu kulan la yeeshay madaxda Hirshabelle ee ku sugan magaalada Beledweyne sida madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi Yuusuf Dabageed. Xuud ayaa sheegay in uu haatan wada hadal kula jiro dowladda federaalka ee Soomaaliya. Kacdoon ayaana la yiraahdaa Hirshabelle wax la yiraahdo shir lama yeelanin annaga ayuu hadalkiisa sii raaciyay General Abuukar Xaaji Warsame Xuud. Arrimahan ayaa ku soo aadaya iyada oo maalin ka hor taliyaha ciidamada lugta Soomaaliya oo ay aad isugu dhow yihiin Farmaajo uu gaaray magaalada Beledweyne isagoo halkaasi ka bilaabay kulamo xal raadin ah si magaalada Beledweyne loogu qabto doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. dhinaca kalena wasaaradda arrimaha difaaca ee dalka Turkiga ayaa markii ugu horeysay shaacisay arrin aanan horay wax badan looga ogeyn oo ku saabsan kaalinta dowladda Qatar ee ku leedahay arrimaha tababarka ciidamada Soomaaliya. bogga Twitterka ee wasaaradda ayaa la soo dhigay sawirro iyo qoraallo muujinaya saraakiil sarsare oo ka socota militariga dalka Qatar oo tababar u fidinaysa 350 askari oo ka mid ah ciidamada commandoska Soomaaliya oo lagu leylinayo xero weyn oo ku taala dalkaasi Turkiga. sawirradan ayaa waxaa lagu dul qoray xarunta tababarka dhanka la dagaalanka argagixisada iyo carbiska isbuucii saddexaad ee tababarka loo sameynayo 350 askari oo Soomaali ah oo Turkiga jooga waxaana qayb ka ah tababarka ciidankan xubno ka tirsan ciidanka militariga ee wadanka Qatar. tababarkan saraakiisha Qatar ayaa ku saabsanaa arrimaha argagixisada dirirka wuxuuna ka dhacay xero ku taala magaalada Isbaarta ee dalka Turkiga. sidoo kale tababarka ciidamada Soomaaliya ayaa aad loogu yaqiinay in ay fidiso dowladda Turkiga balse kaalinta Qatar ee ciidamadu waxay ahayd mid aan horay looga warqabin kaliya waxay dowladda Qatar ku koobnayd arrimaha kale ee siyaasadda iyo diblomaasiyadda la xiriira. Turkiga iyo Qatar ayaa waxa ka dhaxeeya iskaashi military iyada oo dowlad kastaba ay saldhig ciidan ku leedahay dalka kale si isweydaarsi ah inkasta oo la sheegay in saldhigga Turkiga uu ku leeyahay Qatar uu yahay mid aad u weyn. Turkigu wuxuu saldhigga ugu weyn ee tababarka ciidamada ku leeyahay Muqdisho waxaana lagu magacaabaa Turkisom hase yeeshee ciidamada gaarka ah ayaa intooda badan loogu tababaraa gudaha dalkaasi Turkiga. lama oga in saraakiisha Qatar ay tababar iyo talo bixin ciidanba ka fuliyaan gudaha Soomaaliya xilli kooxaha mucaaradka ee Soomaaliya ay aad farta ugu godayaan dowladda Qatar kuna eedeynayaan in ay garab siiso dowladda waqtigeedu dhamaaday oo hogaamiyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. wasiirka arrimaha dibadda dalka Turkiga Hulusi Akar ayaa bishii November magaalada Ankara kula kulmay generaalka ugu sareeya ciidamada militariga Soomaaliya Odawa Yuusuf Raage. markii ugu dambeysay oo arrin ku saabsan ciidamada oo xiriir la leh Qatar ay soo shaac baxdo waxay ahayd sanado ka hor markii dowladda Soomaaliya ay fududeysay dhalinyaro Soomaali ah in askar ahaan loogu qaado dalkaasi Qatar si ay uga qayb galaan ilaalinta koobka adduunka oo ka qabsoomaya dalka Qatar sanadkan aynu ku guda jirno ee 2022. dowladda Qatar waxa ay cambaareynaysaa xadgudub kasta oo loo geysto qof si marin habaabin ah loogu sheegay in Qatar loo geynayo fursad shaqo. dowladda arrinkaasi waa ay ka soo horjeedaa waxayna dhammaan dowladaha kale ka codsanaysaa in ay baaraan ficiladaasi ayaa lagu yiri war saxaafadeed ka soo baxay xafiiska warfaafinta Qatar sida uu ka soo xigtay wargeyska Doha News oo dalkaasi laga leeyahay. bishii Janaayo ee sanadkii 2019 ayay dowladda Qatar gaadiidka gaashaaman ugu deeqday ciidamada Soomaaliya sida ay xilligaasi faafisay wakaaladda wararka Soomaaliya ee Soona. ma jirto xog shaac baxsan ama meel furan oo laga tixraaci karo howlaha tababarka qalabaynta iyo caawinta Turkiga ee ciidamada Soomaaliya marka laga reebo war saxaafadeedyada iyo mararka kooban ee warbaahinta loogu yeero ciidamo soo qalin jabiyay oo Muqdisho lagu soo dhaweynayo iyo kuwa ka dhoofayaba. mucaaradka Soomaaliya iyo waalidiin ubad ka maqan yihiin
oo dhowr jeer warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in ciidan markii hore loo qoray in Qatar loo qaadayo markii dambe la geeyay dalka Eritrea si loogu tababaro. Dowladaha Soomaaliya iyo Qatar ayaanan weli eedahaasi ka jawaabin, lamana oga hadda ilaa xadka Qatar ay ku lug leedahay arrimaha tababarka ciidamada Soomaaliya oo marar badan ay soo baxeen eedo la xiriira in sababo siyaasadeed loo adeegsado. balse sida uu qoray wargeyska Doha News bishii Janaayo ee sanadkii tagay, dowladda Qatar ayaa dowladda Soomaaliya ka codsatay in ay baaritaan ku sameyso dhalinyarada la la'yahay ee la sheegay in ay ku maqan yihiin dalka Eritrea.